waxa aynay dhahday iyadoo ilmeynaysa, geesiyow gacaliye, gaashaankii naftow, gacalkii gurigow, galabtaan go'oo, geeridu ka heshaa, gilgilisho igu riday, goobtaad ku go'day, gacalow rafiiq, geeri adoo u diideen, gacalo hooyadeen, go'aan xume libaaxii, geeri ku horseedaa, goobtani dhig anige, geesiyow abboowe, gunbaa ceelka weyn, galabta ii diiday, geesiyow haddaad joogto, galabta ma ooyeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha qalbiga wanaagsan oo soo dhawaada. maanta waxaan idin wadaa qiso jacayl, taas oo la magac baxday naxdin jacayl. haddaba ka bogasho wacan. waxay ahayd maalin khamiis ah oo ay jirto leyl qabow iyo saxan udgoon badan, dhirtuna miraha iyo ubaxa Rabbi uu ku manaystay aanay indhuhu kolna ka jeesan karin, ayaa daayir oo dhan wada waxa uu yimid ceelkii biyaha. deetana waa uu furay ratigii oo waxa uu bilaabay inuu darsado wadaantii. intaa kadib ayaa waxa uu arkay gabar fadhisa geed quraca hoostiisa oo ilmeynaysa. markaas ayuu daayir u tagay gabadhii oo ku yidhi, maxaa kugu dhacay abbaayo oo aad la ooynaysaa? waxa ay ugu jawaabtay, abboowe, waxaan ahay gabar aan wiilo dhalan oo u dhaamisa ciddeeda, balse maanta waxay haystaa rafaad aad u fara badan oo ah ceelku aan saaka salaada subax soo dul istaagay oo aan hal wadaan ka darsan, iyada oo wiilasha ceelka jooga oo dhan aanay wax naxariis ah ii gelin. alla hadduu walaalkay noolaan lahaa, dhibkan ima yimaadeen. waxa aynay dhahday iyadoo ilmeynaysa, geesiyow gacaliye, gaashaankii naftow, gacalkii gurigow, galabtaan go'oo, geeridu ka heshaa, gilgilisho igu riday, goobtaad ku go'day, gacalow rafiiq, geeri adoo u diideen, gacalo hooyadeen, go'aan xume libaaxii, geeri ku horseedaa, goobtani dhig anige, geesiyow abboowe, gunbaa ceelka weyn, galabta ii diiday, geesiyow haddaad joogto, galabta ma ooyeen. markii ay dhammaysay cabashada ay ka cabanaysa wiil-la'aanta, ayuu yidhi daahir, maya, sidaas ha oo dhan, aniga ayaa kuu dhaaminaya oo weliba kuu rarayo ratiga, balse abbaayo, tuulada miyaad deggan tahay? waxa ayna tidhi, ha abboowe, waxa aan ag deganahay beerta guura jeyte, waa aqalkeen wax yar ka dambeeyo. waan gartay, hadda waa kuu ranaya dhaanka ee soo bax, aan horay kuu sii wadee. laakiin ima weydiinaysid miya meesha aan degganahay aniga? maxaan ku weydiiyaa ama iska dhaafaa? waxaan la yaabanahay axsaanka aad ii samaysay iyo sida wiilasha saaka iigu cayaarayeen. marka waxay ila noqotay wax laga xishoodo inaan weydiiyo wiil saan oo kale ah meesha uu deggan yahay, waayo waxaad soo xasuusisay walaalkay, markaa sidaas ayaan u xishooday. waa tahay abbaayo, aniga ayaa kuu sheegaya meesha aan degganahay. waxaan degganaa beerta guure, magaciiguna waa daahir guure, ee adiga magacaada ii sheeg. ha abboowe, ilhaan ayaa la yidhaahdaa, xaaji cali ayaa aabbahay ah, ayay tidhi. intaas kadib markii la isdhaafsaday ayaa waxaa la yimid tuuladii, deetana la ismacsalameeyey. daahir waxa uu la dhacay gabadha ilhaan ahayd, waayo gabadhu waxay ahayd mid uu Rabbi qurux ku manaystay, joogga jamaalba, midabkeeda casaanka ah iyo timaheeda dhuxusha ah. wiilkii daahir ahaa markii uu gurigii tagay oo uu furay dhaankii, ayaa waxaa niyaddiisa ka bixi weysay gabadha ilhaan ahayd. dhan walba u jeestaba waxaa taagan ilhaan oo qoslaysa. daahir oo yaaban ayaa waxa uu niyadda iska yidhi, talow gabadhu majin bay ahayd, alla qurux badneeda, alla ilaahay ninkii hela oo ay muradiisa noqotaa liibaanay. daahir oo inta uu soo baraarugay is arkay isagoo isla hadlaya, ayaa waxa uu yidhi, waxaan arkay maanta oo keliya, waxayna igu riday jahawareer iyo maqasho aan la fajacay oo aanan garan halka iga yimaadeen. daahir oo gabadha la dhacsan ayaa waxa uu yidhi,